waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal kusoo dhawaada barnaamijyadeennii noo socday. Maanta communitygaan joognaa waxaan rabnaa inaan soo gudbiyo arrin ku saabsan ESL-ka iyo waxbarashada. Si aa ogeedeen hay'adan waxyaabaha qaar ee aad ugu weyn tahay 60% waa waxbarashada, horumarka communityga iyo waxbarashada. In badan baa dadkan soo weydiiyeen ESL class goorma bilaabaysaan. Marka alxamdulilah ilaahay wuu noo soo suurtageliyey dadaalkeeni ka soke. Maanta waxaa ila fadhiyo inaad garanaysaan Jamaal walaalkeen, waa nin aqooniyaan ah oo kusoo biiray communitygeena oo resource aad u fiican insha allah nagu soo kordhin doono. Jamaal wuxuu noqon doonaa macalin ka dhigi doono ESL-ka weegii 2 jeer oo dadka waaweyn hadduu ilaahay yiraaho, isagana nin xirfadaas aad u jecel oo kusoo barbaaray. Jamaal kusoo dhawow walaalkay. Jamaal waxay iska sheeg iyo ummadan inaan ku baraaraba communityga insha allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Jamaal Cabdinaasir Cumar. Waxbarashadeeda waxaan kusoo qaatay shahaadada koowaad magaalada Addis Ababa, shahaadada labaad magaalada Addis Ababa aan kusoo qaatay. Master of Law sharciga ayaan soo bartay, magaalada Addis Ababa aan kusoo bartay, law kusoo bartay. Waxaan macalin ka ahaa jaamacadda Jijiga University, ayaan ka ahaa dean sida loo yaqaano dadku maraha hormuud jaamacadeed baan ka ahaa. halkaas wax ka dhigaya at least 6 years. waxaan ka shaqaynayay xafiiska maaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida. waxaan ka ahaa la taliye sharci baan ka ahaa, sidoo kale waxaan ka ahaa madaxa shaqaalaha iyo adeega guud baan ka ahaa. waxbarashadeedu waxa weeyaan labada qaybood, Master of Law iyo degree. Masha Allah. Marka galaaska la dhigayo fasalkaas experience-giisa bal waxay noo waran. waxbarashada mostly Soomaalida waxay moodaa inaanay ku fiicnin dhinacyada xagga kalaasyada soo markay imanayaan kalaaska, laakiin waxaan ku dadaali doonaa insha allah marka kalaaska la dhigayo in aan ka caawino dadka ardayda intii karaankayaga ah inaan u fahansiino xagga luuqadda, maadaama halkan ay muhiim tahay dadka Maraykanka ku nool inay luuqaddii yaqaanaan. waxaa isku daynaa markaa inaan u gudbin karno xirfadii aan kusoo bartay jaamacad, macalin ahaan aan ahaa ama arday aan ahaado ama macalin aan ka ahaa, luuqadana aan ahaa at least mar haddaad loo yartahay inaad luuqadda ingiriiska aad u taqaana ay tahay. dhowr jeerna aan dibloma ku qaatay luuqadda ingiriiska oo aan dadaal badan la sameeyey. markii aan arkay American mudday waxaan isku dayay inaan dadkii dhex galo. waxaan markaa ogaaday at least 70% dadka Soomaalida ee halka yimiday inaan la qabsan karin, la jaanqaadi karin wadankan Maraykanka because luuqadiisii oo aanay aqoonin ama background-koogii oo dad wax bartay aanay ahayn. marka waxaan ka fikiray sidii aan u heli lahaa chance hal mar uun dadkaas Soomaaliyeed luuqadii iyo dadaalkii 30 sannadood ee aan wax soo dhiganayay aan ku bartay in aan meel aan ku gudbiyo. fursadaasna waxay siisay Somali community oo ugu horeeya Farxaan in aan helo markaa base ama meeshii aan ka gudbin lahaa. maanta ayaan ilaahay suurtageliyay inaan ku guulaysano insha allah. waxaana bilaabi doontaa June 3rd 3 June 2024. waxaana soo sheegay Masha Allah, jazakallah. waa ujeedaan walaalkan Jamaal oo background-kiisa iyo aqoontiisa iyo waa nin mutacalin ah, professor ahaan jiray inuu nii sheegay experience-giisa. waxaa kaloo marka nagu darayaa goortay bilaabanaysa. wuxuu bilaabanayaa bisha 6aad 3deeda oo bilaabanaya kalaaska, wuxuuna soconayaa 2 cisho, Monday and Tuesday. waana dadka waaweyn adultiga ah, waa 5 ilaa 7 labadaas saacadood. marka waxaa rabaa inaan sheego linkiga laga buuxinayo wuxuu ku qoran yahay hoostaana ku jira. haddaa Facebook ka daawanayso comment kor ku qoran yahay, hadduu yahayna TikTok wuxuu ku jiraa profile-kii. marka iska register waa kalaaskana qof walba mas'uuliyad baa ka saaran oo ka dhigan doono. waana feegiisa waxaa weeye $100 qof walba inuu iska bixin karo. wuu bixin karaa American jooga $100 oo inuu ku barto luqadda Ingiriiska ah. marka different levels buu noqon doonaa. buug baa jiro uu professor isagana uu hayo uu ka bixin doono daraasooyinka haddii la yiraaho. but also suu ii sheegay dad waxaa jira different level kala ah in iyagana kala saari doono. laakiin masha Allah waxaa nimcad iyo dadaal iyo juhdi badan iyo dream noo ahaa mar walba inaan community kusoo kordhino si professional dadkeena inaan wax u barno luuqadda iska dhiso. because haddaan luuqaddii aan fahmaynin waxaa wadankan horumar ah ka samaysid waa wax limit ah, waa adag tahay.
marka luuqadda waa wax ugu horeeya la barto luuqadda waa wax ugu horeeya la barto qof walbana waxaa aniga kula talin lahaa inuu luuqadda barto because luuqadda hadaad taqaanid waxaa ka dhismaysaa mentally physically iyo confidencigaaga haddaa luuqadda taqaanid confidencigaaga ayaa meelo badan insha allah ku marsin doona marka professor ma waxbaa ku daraysaa waxaan ku darayaa in dadka ardayda insha allahu tacaala barnaamijkan kasoo qeybgeli doonaya markaas inay isregistergarayaan kuna dadaalaan inay attendanska imaanshaha classka ay ilaaliyaan waayo dadkeena yar kuma yarfeena marka time tablkeedii siiyey iyo waqtiga aad imanaysaan inaa ilaalisaan intaasaan ku dari lahaa aniga maasha allah warkii dubaad suna sheegay inaa waqtigeeda ilaaliya classka because waa waqti kooban waa waqti uu nii diyaariyey uu rabo inuu community ugu faa'iideeyo aqoontiisi uu banaanka usoo dhigo because qofku markuu wax barto wuxuu jecel yahay waxbar aqoontaas inuu la wadaago walaaladiis insha allah marka hala ilaaliyo linkigaasna hala soo buuxiyo applicationka meesha kasoo buuxinaysaa kabacdi markaa la helno inta qof 20 qof ugu horeyso ayaan insha allah la qaadan doonaa marka ha sugin intuu ka buuxsamaayo